waxaa soo kordhaya dhalinyarada fanka iskaga baxay muddooyinkii dambe iyadoo isbuuc gudihiisa laba fanaan ay sheegeen in ay ka fariisteen heesihii ay qaadi jireen. Siciid Bashiir oo loo yaqaano Siciid Taariikh ayaa shaaciyay in uu gabi ahaanba iskaga tagay bahdii fanka ee uu ku jiray. Waxa uu ka mid ahaa dhalinta heesihii laga daba dhacay ee la xiiseyn jiray soo qaaday. balse Siciid Taariikh ayaa sharaxaya waxa uu kaga tagay fanka. dhammaan Soomaali weyn waxaan rabaa arrintii aad igu ogeedeen ee fanka inaan soo gabagabeeyay gabi ahaantiisa waan iskaga baxay runtii arrintaas go'aankaasna waxaan rabaa inaan ku dhaqaaqo runtii aad ugu faraxsanahay waan ku qanacsanahay hanuunkana Rabbi baa iska leh Ilaahay mahadis kale u sugnaatay waxaan dhammaan ugu mahadcelinayaa abtiyaasha iyo waalidiinta iyo hooyadii aabahay. sidoo kale laba cisho kadib shaacintii Siciid Taariikh fanka uu kaga baxay waxaa isna joojiyay fanaanka Maxamed Mursal Diamond. hadduu sadrigayga intii suntayo saluuka ogaaday Mursal waxa uu xitaa sheegay in Diamond loogu yeeri karin maadaama uu magacaas la haray heesihii uu qaadi jiray oo uu iskaga tagay. قينا ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. مقعي هو محمد مرسل حسين إدتك يقانان مو دايمون مقعس نقود أهم وحواي وإله حكبريه إن مركل اللي يقول عن محمد دايمون أصحابتي اللي يقول عن محمد مرسل. برنامج كي مركل أقود قاله وجيتك أنت أفضي وحياتها هاي waxaan ahaa fanaan heesi jiray haddana ilaahay dartiis u doobad keenay dhammaanteen ilaahana soo hanuuniyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa heesihii aan qaadi jiray ama dadka i xiiseyn jiray ama dadka heesihayga dhageysan jiray dhammaantiin waxaan ka codsanayaa heesihayga inaad iska dhaaftaan. YouTuberiska dhamaantood inta heesayga YouTube ku jiro waxa ka codsanaa inay heesayga iska dileedaan ama iska saaraan waa codsi iyo waliba waa Ilaahay dartiis hadalkan inaa ku dheeraado maro dhammaan social media inta isticmaasho waxa ka codsanaa qeyrka inay faafiyaan waxa ka codsanaa Ilaahay dartiis inay heesayga YouTube ku saaraan waxa ka codsanaa dadka munkarka igu taageeri jiray inay maanta igu taageeraan qeyrka Ilaahana waafajiyo waxaan ka codsanaa sida uu dhantiinayseega inaad YouTube ka saartaan mar maanta dhan waa idinku soo celcelinaa Ilaahay dartiis iiga saara. sidaas oo kale waxa iyaguna horay fanka uga baxay fanaaniin hablo iyo ragba iskugu jira. marka walaalo aniga go'aansaday inaan fanki gabi ahaanba ka baxo ana isu garan waayay markii horena cidigu may qasbin imikana ana sida jecelaystay inaan ka baxo waxaan halkan hambalyo uga diray iyadana walaashay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo hanuuniyay hawshii ay ku jirtay oo ahayd Xamdi Kuwin fanaanadii Xamdi Kuwin dadkii bariga aan Hargeysa tagay igu soo dhaweeyay kamid ahayd runtii waa gabar walaashay Xamdi waxaan u rajeynayaa insha Allah ta'ala iyadoo dhalinyaro ah oo gabar ah in insha Allah ta'ala ay hawsha iskaga baxday Ilaahay dartiisna ay uga baxday cid ka saartay iyo cid maartay hawsha aan shaqo macnaha ku lahayn laakiin iyadu ay iskaratay wax kan inay adduunyo tahay oo laga tagayo Ilaahayna uu jecel yahay subhanahu wa ta'ala adoonku markuu shaab yahay oo dhalinyaro yahay oo maartay waqtigu cibaadeysan karayo waqtigu wax qabsan karayo inuu waqtiga u soo noqdo goor xeero iyo fandhaal ay kala dhaceen way ka fiican tahay waqtigaas.